xubno ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa mooshin u gudbiyay guddoonka aqalka sare xilli bari la filayo inay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya codka kalsoonida u qaadaan ra'iisul wasaaraha magacaaban Xamse Cabdi Barre. ilaa 10 xubnood oo ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudbiyay mooshinkaas kaas oo la sheegay in lagu hubsaday gacanta gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi. xubnaha aqalka sare waxay mooshinkan ku dalbanayaan in xukuumadda cusub laga qayb geliyo sida uu inoo sheegay mid ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. waxaan u gudbinay guddoonka in dhammaan xildhibaanada labada aqal ka mid noqdaan golaha cusub ee wasiirada ama in laga wada saaro, ayuu yiri senator ka mid ah aqalka sare oo aan arrintan wax ka weydiinay. gudoomiye Cabdi Xaashi waa qabtay mooshinkan sida la xaqiijiyay, balse weli wax tallaabo ah oo arrintan la xiriira ma uusan qaadin. xubnaha u ololeynaya arrintan waxay sheegeen inay beri bilaabayaan dabagal ku saabsan sababta uu gudoomiye Cabdi Xaashi hoos ugu dhigay mooshinkooda. aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa la dhisay 2016. waxay si buuxda uga maqnaayeen xukuumadihii la dhisay 5 sano ee la soo dhaafay. xubnaha aqalka sare waxay ku doodayaan inuusan jirin qodob sharci ah oo u diidaya ka mid noqoshada golaha wasiirada, balse xubnaha taageersan in aqalka sare uusan ka mid noqon golaha wasiirada waxay soo daliilsanayaan qaybta 3 qodobka 97 ee dastuurka Soomaaliya oo dhigaya ra'iisul wasaaruhu wuxuu magacaabayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenno, wasiiro, wasiiru dowlayaal iyo wasiir ku-xigeenno. golaha wasiirada waxay ka imaan karaan xubin ka mid ah golaha shacabka iyo xubin aan ka mid ahayn golaha shacabkaba. senataradu waxay ku doodayaan maadaama aan qodobkaasi lagu cadeynin inaanay xubnaha aqalka sare wasiir noqon karin inay iyagu xaq u leeyihiin ka mid noqoshada xukuumadda. maadaama uu sharcigu sheegayo in xubin golaha shacabka ah iyo mid aan ahayn intaba ay noqon karaan wasiiro oo uusan qodobku marnaba ka hadlin xubnaha aqalka sare, halkaas xoogaa fursad ah ayaa uga muuqata xubnaha aqalka sare ee quudareynaya inay wasiiro helaan. ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ayaa xukuumaddiisa xooggeeda ka dhigay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka, taasoo sababtay inuu noqdo ra'iisul wasaarihii ugu cimriga dheeraa xukun ahaan burburkii kadib. maadaama ansixinta xukuumadda iyo ridisteedaba uu dastuurku gaar u siiyay golaha shacabka, halkaas waxaa ku yaraanaya ahmiyadda ay ra'iisul wasaarayaashu u qabaan aqalka sare. ra'iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre oo hadda ku soo aaday waqti xubnaha aqalka sare ay raadinayaan ka mid noqoshada xukuumadda ayaa la eegayaa sida uu uga jawaabo doodan cusub. inay xubnaha aqalka sare ka maqan yihiin golaha wasiirada ayaa la aaminsan yahay inay xiisihii ka qaaday xubinnimada golaha aqalka sare. xubno badan ayaa doorashadii u dambeysay isaga tagay aqalkan oo loo arkay mid aan siyaasad ahaan fursad badnayn. shaqada dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada oo sanadihii dambe hoos u dhacday ayaa sidoo kale dishay miisaankii aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. haddii ay mooshinkan ansixiyaan xubnaha aqalka sare oo ay isku raacaan inay xukuumadda ku biiri karaan, lama oga sida fulinteedu u sahlanaan doonto ama uu ra'iisul wasaaraha cusub mudnaan gaara u siin doono aqalka sare. maxay kula tahay adiga?